السلام عليكم أخيارتنا la socota meel kasta oo dunida ka joogtaan waa 17 May sanadka 2026 barnaamijkan oo ka mid noqon doona tabinteena caawa ee wararka iyo faaqidaada caalamka qodobada aan idin kugu haya waxa kamid ah madaxweynaha dalka Mareykanka oo goordhow la hadlay majalada Axios ayaa ku dhawaaqay u diyaargarowga dagaal cusub Iran ma jirto wada kale oo xal looga keeni karo balse hal shardi ayuu ku xiray ka hor inta aanu weerarka bilaabin ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo madaxweynaha wadanka Mareykanka waxay goordhow ka wada hadleen malafka dawladda Iran iyadoo warar soo baxaya ay tilmaamayaan inay jiraan xasaasiyad kale oo hor leh haddaba Trump iyo Netanyahu caawa maxaa dhaxmaray maxaa laga qaatay xaaladda gobolka haddii gacmeed laga leeyahay wadamada Yurub ayaa soo bandhigay maraakiibta dagaalka Mareykanka ee diyaaradaha xambaara oo ku dhawaanaya gudaha wadanka Iran iyadoo sidoo kale maraakiib kale oo burburiyaal ay la socdaan tan waxay muujinaysaa tallaabo militari oo degdeg ah in la qaadi karayo saacad walba dawladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran war ka soo baxay waxa lagu tilmaamay in Mareykanka meel cidla ah uu jafayo lagana baqayo dagaalada inay iyaga ku jabaan nin u hadlay hogaamiyaha sare ee wadankaasi Ayatullaahiga ayaa war xasaasi ah goor u sii daayay oo ku saabsan arrimaha ciidamada dalka Iran dawladda Isutaga Imaaraadka Carabtana waxay ka hadashay weerarkii lagu qaaday xarunta tamarta nuclearka ee dalkeeda weerarkaas oo lagu eedeynayay inay ka dambeysay dawladdaasi jamhuuriyadda islaamiga ee Iran haddaba gobolka bariga dhexe lama horaan miyo caawa u yahay dagaal mase muuqata wada kale oo lagu badbaadinayo xalka diblomaasiyadda qodobadaas ayaan ku lafagurayaa barnaamijkan iyo kuwa kale oo dheeraad ah ee khiyaarta ay nala socotay ku soo biira YouTube-ka oo subscribe saara saaxiibadina la wadaaga aad baad laga leeyahay ayaa goordhow ku dhawaaqay in waqtiga Iran u haray oo sii siqayo loona baahan yahay inay ka fiirsadaan suurtagalnimada dagaal aad xoogan oo aysan awoodi karin inay iska difaacaan oo uga imaanaya wadanka Mareykanka sida uu Trump hadalkiisa u dhigay doodan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisada gobolka saacadba saacada ka dambaysa ay isbedelayso walaaca ugu weyn ee la qabanay tahay dagaalka inuu noqdo mid aad u sii xoogaysta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in haddii Iran aysan u gudbin dalab ka wanaagsan kan hadda jira ay wajihi doonto weerar ka adag kana culays badan kii ay hore la kulmeen waraysi uu siiyay Axios Trump waxa uu ku yiri wali waxaan aaminsanahay in Iran ay doonayso heshiis isla markaana uu sugaya baaliri in Tehran ay dirayso soo jeedin cusub oo lagu cusboonaysiinayo dagaalka inta aanu bilaaban dalabka Axios ama dhinaca kale Axios oo xiganaysa saraakiil Mareykan ayaa sheegaya in dawladda Trump uu doonayo in la gaaro heshiis lagu soo afjarayo colaadda balse ciidamada Iran ay ciidamada Iran baalira ay dalabaad badan oo Mareykanka soo bandhigay ay ka fogaashiyo sameynayaan taas oo la xiriirta arrimaha barnaamijka nuclearka oo cidda ugu weyn ee diidaysa ay tahay in miiska la soo saaro ciidamada ilaalada kacaanka ee jamhuuriyadda sidoo kale warbaahintu waxay tilmaamaysaa in la filayo Trump in maalinta Salaasada uu qabto kulan muhiim ah oo ka dhici doona baaliri qolka xaaladda degdega ah ee situation room halkaas oo ay ku yeelan doonaan xubnaha sare ee kooxda amniga qaranka si looga doodo xulashooyinka tallaabo military oo suuragal ah oo dawladda Mareykanku ay qaadi karaan horumarkan ayaa ku soo ama hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo xiisadu ay iminka u muuqato in ay ka sii darayso sidii markii hore ay ahayd oo laga baqayo xaaladdu inay aad u sii xoogaysato laba markab oo kamid ah kuwa diyaaradaha dagaalka xambaara ayaa ku soo dhawaanaya biyaha wadanka Iran isla markaana ay hareero socdaan saddex markab oo kale oo burburiyaal ah talaabadan ayaa laga baqayaa inay tahay weerar dawladda Mareykanku ay qaadayso oo ka dhana jamhuuriyadda islaamiga xilli xiisadu ay cirka isku shareerayso askartii iyo ciidankii ugu badnaana Mareykanka uu ku daabulay gobolka bariga dhexe arrintani waxay caawa baahinayaan telefishinada gobolka xilli maanta dawladda Iran lagu eedeeyay weerar ay ku qaaday gudaha wadanka Isutaga Imaaraadka
sawirro ay baahiyeen dayax gacmeedyo ayaa muujinaya dhaqdhaqaaq ciidan oo Mareykan ah oo ka soconaya waqooyiga badda Carabta halkaasi oo lagu arkay laba markab oo dagaal oo diyaaradaha xambaara oo ka tirsan baaliyada ciidamada gaarka ah ee Mareykanka kaasoo ay weheliyaan 3 markab oo burburiyaala sida warbixintu ay tilmaamayso sawirro laga helay dayax gacmeedka Yurub ee Sentinel-2 lana qaaday 16 May ayaa muujinaya markab ku socda badda iyadoo raad muuqda oo dhaqdhaqaaq ah lagu arkay dusha sare ee gobolka ama goobta markabka uu ku sugan yahay oo ahayd waqooyiga badda Carabta ee dhanka bari ee Hormuz. ila xog ogaala ayaa sheegaya in Iran wali si rasmi ah loo xaqiijin magaca markab rakiibtan diyaaradaha sida ee gaarka ah halkaasi ugu sugan. sidoo kale labada markab ee Mareykanka ee ku sugan aagaasi ayaa lagu tilmaamayaa inay yihiin markabka USS Abraham Lincoln iyo markabka kale ee lagu magacaabo USS George H.W. Bush oo wali jooga baaliyada gobolka maadaama markabka ugu weyn caalamka ee diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ee USS Gerald Ford oo ku laabtay dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Virginia. ila xog ogaala waxay sidoo kale tilmaamayaan sawirradan inay muujiyeen laba burburiye oo ama 3 burburiye oo Mareykan ah oo wali ku sugan biyaha qaliishka markabka xambaara diyaaradaha ayaa la sheegay in qiyaastii 270 kilomitir koonfur bari uu uga beegan yahay dekada Chabahar ee dalka Iran halka qiyaastii 215 kilomitir dhinaca xeebaha Oman uu ka xigo meel u dhow magaalada Saar la yiraahdo. dhaqdhaqaaqa cusub waxa loo badinayaa inay tahay arrin walaaceeda leh oo dowladda Mareykanku ay suuragal tahay in tallaabooyin weerar ay ka qaadaan gudaha wadanka Iran. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa caawa ku dhawaaqay in isaga iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ay si weyn uga doodeen telefoon ay ku wada hadleen kadib malafka wadanka Iran iyo xaaladda gobolka bariga dhexe iyo sida labada dhinac ay isaga kaashan karaan weerar kale oo lagu qaado dowladdaasi. warbaahinta Axios ayaa warisay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ay yeesheen wada hadal dhanka telefoonka oo diiradda lagu saarayo arrimaha quseeya dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga. sida lagu sheegay warbixin ila ka tirsan dowladda ayaa sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen xaaladda saaca karmaysa ee ku saabsan barnaamijka nuclear-ka Iran iyo xaaladda amni ee gobolka. faahfaahin dheeraad ah lagama bixin waxyaabaha sida gaarka loogu gorfeeyo wada hadalkan balse arrintan ayaa waxa ay xiriir la leedahay dhibaatooyinka sii xoogaysanaya ee gobolka bariga dhexe oo iminka gaaray baarkii ugu sarreeya lagana baqayo dagaaladu in ay sii ballaartaan. hogaamiyaha sare ee wadanka Iran la taliya sare oo hadlay oo isaga ku dhawaaqay ku dhawaaqay dowladda Mareykanka in bancid la ah ay jafayso dagaal kasta oo ay qaataan ay ku noqon karaysa mid ay iyadu ku jabto. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii ay maalmihii ugu dambeysay dowladda Mareykanka iyo ilaalada kacaanku ay gurada iskula jireen arrimaha siyaasadda la xiriira iyo wada hadalladana ay aad u gaareen. wakiilkan la taliya hogaamiyaha sare ee dalka Iran isla markaana u qaabilsan dhinaca ciidamada ilaalada kacaanka ayaa sheegay in wada hadallada diblomaasiyadeed ee dalka ka socda kaliya ay si buuxda u kormeerayaan baaliyay madaxda ugu sarreysa ee dowladda isla markaana shuruudaha ku xiran ogolaashihiisa ay tahay hogaamiyaha ugu sarreeya qarankaasi Ayatullaahiga. mas-uulkan ayaa xusay in dhammaan wada xaajoodyada muhiimka ah lagu fulinayo hagid iyo waliba dabagal baaliyay joogto ah oo ay sameynayaan madaxda sare ee dalka Iran isagoo carabka ku adkeeya in go'aan kasta oo kama dambaysa uu ku xirnaan doono ansixintiisa hoggaanka sare ee Ayatullaahiga. waxa uu sidoo kale sheegay in Iran ay rumaysan tahay in guusha lagu gaari karayo kaliya in la ilaaliyo midnimada gudaha iyo isku dabaridka shacabka iyo hay'adaha dowladda iyagoo garab istaagaya hoggaanka gacanka ee Mujtaba Khamenei. hadalkan waxa uu muuqanayaa dowladda Iran inay doonayso in ay shacabkeeda isku dabariddo si ay uga adkaato dhinacyada doonaya weerarka kale inay ku soo jiteeyaan.
ugu dambeyntiina dowladda isutaga Imaaraadka Carabta oo maanta dharbaaxa adag oo weerar la kulantay ayaa waxa ay tafaasiil ka bixisay goobta la weeraray iyo sida ay wax u dhaceen kadib hadal ka soo baxay mid ka mid ah wasaaradaha dowladdaasi isutaga boqortooyada Imaaraadka. dowladda Imaaraadka ayaa si adag u cambaaraysay weerarka loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ka dhacay meel ku dhow xarunta nuclearka ee Baraka oo lagu tilmaamay dhacdaasi inay tahay kororka qatar weyn oo wadankaasi iyo guud ahaanba amniga gobolka uu wajahayo. bayaan ka soo baxay wasaaradda qaarijiga ah ee Imaaraadka ayaa lagu sheegay in weeraradan ay yihiin xadgudub aan la aqbali karin iyadoo hanjabaad toos ah oo ka dhan ah ammaankeeda u jeedisay dalka arrintan ka dambeeya. wasaaraddu waxay carabka ku adkaysay inay si buuxda u diidan tahay bartilmaameedka goobaha muhiimka ah iyo xarumaha rayidka iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo weerarada gardarrada ah ee noocaan ah ee lagu doonayo in lagu kiciyo xiisadda gobolka ee sii xoogaysanaysa. sidoo kale Imaaraadka ayaa sheegay in aysan marnaba ka gamban doonin difaaca amnigeeda iyo madax banaanideeda xaalad kasta hase ahaatee isla markaana ay haysato baalidi dhammaan xuquuqaha sharci diblomaasiyadeed iyo military oo looga jawaabi karaya hanjabaad kasta iyo fal kasta oo cadowtinimo ah ku soo aada. hadalka waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo xiisadda gobolka bariga dhexe uu cirka isku shareerayo dowladda isutaga Imaaraadka Carabtana ay noqotay dibanaha koowaad ee dagaalka. habeen wanaagsan khiyaarta ay nala socotay tabinta qaybtan intan ayaan ku eebiyaa warar kale oo xiiso leh oo ku saabsan arrimaha diblomaasiyadda, siyaasadda, dagaalka, militariga iyo waliba dhaqdhaqaaqyada gobolka bariga dhexe ee loolanka dowladaha ayaa inoo soo socda ee ku soo biira YouTube-kan oo subscribe saara YouTube-ka kale ee Barrow Show-na waad naga arki kartaan iyo barta Facebook dhammaantiin waxaa idin leenahay waa mahadsantiin.